naafadan loo qaybiyay gaadiidka ay ku socdaan ayaa waxay tahay mid wax weyn ka bedeli doonta naafada ku dhaqan gobolka Sool ayaa iyagu waxa ay dhibaato weyn kala kulmaan baabuurta baaskiilada ama wheelchairka ay ka haystaan taasoo wax caawinaad aysan cidna ka helin deeqdan ayaa waxay ka koobnayd 30 baaskiil oo noocan naafada loogu talagalay waxa deeqdan isku doonsiiyay naafada xarunta gobolka Sool Mubaarak oo kamid ah qurbajoogta iyagu ka soo jeeda gobolka Sool Sheekh Mubaarak ayaa wuxuu sheegay deeqdan inay soo ururka sahan ee isagoo sheegay in ay ku soo direen mutadawiciin kale 10 xabo oo kamid ah baabuurta curyaamada iyadoo horey ay ugu soo talagaleen 20 gaari oo noocan oo kala guud ahaan naafada ku dhaqan gobolka Sool iyo deegaamada hoos yimaada ayaa waxay yihiin tiro aad u fara badan oo aan helin wax caawimaad naafadan ayaa waxay isugu jiraan qaarkood kuwa wax ka qaba lugaha indhaha iyo lixaadkooda oo qaar kala dhiman yihiin waxaana dadkii halkaasi ka hadlay ay dhamaantood ka codsadeen dadka muslimiinta in la soo caawiyo dadka naafada iyagu u baahan caawinaada geesta kale waxa iyaguna halka lagu guddoonsiiyay naafadan in lacag dadkan naafada ah baabuur loo qaybinayay oo ay bixisay hay'adda sahan UK khaasatan magaalada Birmingham masaajidka Ar-Rahma ayaa lacagtaas soo sadaqeeyay sanad ka hor ramadaanteedii waxa laga yaabaa in la yiraahdo waa daahday waa run laakiin waxa u daahday lacagta masaajidku bixiyay waxay 20 gaari anaguna waxaan isku daynaa 30 ka dhigno ilaahay subxaanahu wa ta'aala waa noo fududeeyay wadanka gudihiisa waa ku sameeynay waqti dheer bay naga qaadatay alaabtan inaan helo iyo farsamadan laakiin hadda waa leeyahay alxamdulillah ilaahay subxaanahu wa ta'aala waa mahad celinayna waxaan u mahadnaqaynaa dadkii soo bixiyay masjid Ar-Rahma magaalada Birmingham iyo dadkii lacagtaas sadaqaystayba dadkiina wata gaadhay 30 gaarina weeye insha Allah ta'ala markaan inta umma ka baxaya waan u mahadnaqayaa dadkii bixiyay ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka balmaray mahad iska leh thaniyan dadkii walaalaha ahaa ee ka qayb qaatay hawshan gobolka u fududeeyay dadkooda naafada ah inay helaan gaadiid yar oo ay ku socdaan oo ay dhulka kaga kacaan marka ugu horeysa oo u mahadnaqaynaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka abaal mariyo miisaanka xasanaadkana ilaahay ha u saaro halkan waxaa u matelayay oo alaabta lagu wareejiyay Mubaarak Xasan Faarax oo aanu ka guddoonay 30 gaari oo loogu talagalay gobolka Sool magaalada caasimadda iyo degmooyinka ku hareeraysan oo intuba insha Allah ta'ala dadkoodii aanu liis garaynay oo ay ka qayb galayaan dhamaantood marka waxaanu aad iyo aad runtii ugu mahadnaqaynaa dadkaas hawsha wanaagsan ay ka qayb qaateen waxaanu aad iyo aad u codsanaynaa dadku baahiyihiisu way badan yihiin gobolku aad iyo aad buu xagga magaranaysaa naafada ugu liitaa marka in hawshaas aysan noqon tii ugu dambeysay uguna horreysay ay noqoto mid socota hablaha $800 Zainab iyo Aamina ilaahay waxaanu ka baryaynaa dadkii soo dhiibay ee ka shaqeeyay iyagoo insha Allah ta'ala habluhu ay badnaayeen oo halkan lagu xuso doono qaar kamid ah magacyadooda ilaahay waxaanu ka baryaynaa miisaanka xasanaadka ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu qiyaamaha u saaro dadka walaalahooda ee naafada ah ee nooc walba lana ugu soo sadaqaystay insha Allah soo hagaagtay maal aad iyo aad loogu baahan yahay sadaqaduna marka loo baahan yahay way ka khayr badan tahay marka dadku iska leeyihiin waxaan leenahay mowqiceedii iyo meesheedii bay dhacday insha Allah ta'ala aad waxaan ugu mahad celinayaa hablaha gacanta aaminka ah ee soo gudbiyay sidii loogu talagalay u soo gudbiyay جزاهم الله خيرا وبارك الله فيكم آدي آدبان يقوم هاد علينيا حديث صحيحة من لم يشكر الناس لم يشكر الله قف كان ومضى هادين وكم هاد علينا وكل شكرين إلهنا كم شكريه نبينا عليه الصلاة والسلام حديث صحيحة وكيلها من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له وفي رواية فقولوا له جزاك الله خيرا نبي عليه الصلاة والسلام حوليا قف كستو وناق إذن سمية يعني وأبال قد جزاك أبالك وناق إذن قلي أبال وناق سنو قعليا هذا هلين واحد وأبال قدانا الدعاء بالنبي عليه الصلاة والسلام وعلينا هيرير بهم قرار من الرحمة ويوكا جمعية صهن waxaan leenahay جزاكم الله خيرا hawshanaad qabateen aad baan ugu mahadcelinaynaa oo idinku mahadinaynaa waxaan leenahay siyaadiya sida Sheekh Mubaarak uu tilmaamay Dikriin Somali Channel TV magaalada Laascaanood